musharax xildhibaan golaha shacabka ahna ganacsade mudane cabdisamed aweys sheekh maxamuud oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay gegada dayuuradaha ee Oratambo International Airport ee magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika kadib howlo shaqo oo ku tagay ee dalka Soomaaliya. soo dhaweynta musharaxa waxaa ka soo qayb galay hoggaanka ugu sareeya jaaliyadda, odayaasha dhaqanka, dhalinyaro, aqoon-yahano iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. soo dhaweyn iyo ismarxabeyn kadib xubnihii ka soo qayb galay madasha ayaa kelmado soo dhaweyna halkaasi ka jeediyay iyagoona ku ammaanay musharax xildhibaan Cabdisamed in uu yahay nin mudan in xilligani uu ka mid noqdo golaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya. waxayna sheegeen in uu si weyn ugu soo shaqeeyay jaaliyadda mar uu soo noqday xogayaha guud ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika. waxaan halkan u joognaa caawa soo dhaweynta walaalkeen musharax xildhibaan ganacsade xoghayihii hore ee jaaliyadda guud ee Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika mudane Cabdisamed Aweys Sheekh Maxamuud. waxaan dhammaan u mahadcelinayaa bahda TV-yada, asxaabta ka soo qayb gashay, odayaasha, dhalinyarada, tiimkii qabanqaabada ee brotokoolka, gabdhaha. waxaan idin leeyahay insha Allahu tacaala taariikhda idin xusi doonto. waxaad tihiin jaaliyadda Soomaaliyeed khaasatan reer Gauteng dhalinyaro ama jaaliyad mar walba u taagan soo dhaweynta madaxda Soomaaliyeed, culimada diinka Soomaaliyeed, siyaasiyiinta Soomaaliyeed, ganacsatada Soomaaliyeed. caawa oo habeen taariikhi ah waxaan leenahay Cabdisamed ku soo dhawaad waddankaagii labaad. suldaanka ummadda Soomaaliyeed waxaan soo dhaweynaynaa maanta ku soo dhaweynaa Tambo waxaan ku soo dhaweynaynaa walaalkeen Cabdisamed oo musharax xildhibaan ah. markii Ilaahay waxaan kaaga baray inuu musharax Ilaahay ku seelo hadii lagu soo dadka iyo dawladda iyo deegaankaaga iyo dadkaaga si fiican ugu shaqeey qaasaan waliba South Africa dhalinyarada South Africa meesha aad ku soo barbaartay way meesha ka baxday way waan ku tagaynaa xildhibaanka aan sugeynaa tahay. marka waxaan ku leenahay ku soo dhaw South Africa waatan hore oo taqaana haddana ku soo dhaweynaa Cabdisamed Sheekh Aweys oo runtii safar shaqo ugu maqnaa dalkii hooyo oo aan rajaynayno insha Allah taala inuu ku guuleysto xilka xildhibaannimo 2026. waxaan leeyahay saaxiibkay ganacsade Cabdisamed ku soo dhawow gurigaagii South Africa gaar ahaan Johannesburg. waxaan halkaan u taaganahay oo maanta dhan aan ku sugaynay inaan ku soo dhaweyno odayaashii dhammaan. aad iyo aad u mahadsan tahay. soo dhawow walaalkay mar labaad iyo mar saddexaad. xogayii hore waxaan joognaa dhammaan oo jaaliyadda dhammaanteena rag iyo dumar dhalinyaro waxaan isugu imaanay inaan soo dhaweyno. waxaan ku leenahay Cabdisamedow welcome back home aan ku leenahay. dee anaga dadku jeclaan nahay asxaabteena nahay waxaan ku leenahay welcome soo dhawow. maanta waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa walaalkeen Cabdisamed oo ah xildhibaan musharax xildhibaan ahna xoghayihii hore ee jaaliyadda. waxaan leenahay walaal ku soo dhawow dadkaagii ku jeclaa xilka aad u socotidna Ilaahay waxaan kaaga baryaynaa inuu Ilaahay kaaga dhigo mid aad dadka iyo dalkaba aad wax ugu qabatid. mudane musharax ha dhawaaw kalana jaaliyadda taha ka dhawaaw dadka jeel ha ka dhawaaw qalbo furan ha ka dhawaaw Soomaaliya oo kiinteegin iyo iska duuban jaaliyadda iyo dhalinyaradii sagiir iyo kabiir wala shil hiri mala garoonka oo ka buuh meelashal surmo lu waaysinya jeelan lakiin qob marka may kalana anoo ka hadalo afkii ayow may kalaha mar lamaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ha dhawaaw kal. magacay waa Amiir Cabdicasiis Biixi. waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa musharax xildhibaan Cabdisamed Aweys oo ahaana xoghayihii jaaliyadda hore. ku soo dhawow South Africa dalkaagii iyo jaaliyadaadii dalkaagii Soomaaliyeed aad ka tagtay iyo dalkaagii South Africa aad ku soo ceeshtay. welcome back baan ku leeyahay walaale. musharax xildhibaan Cabdisamed Aweys Sheekh Maxamuud ayaa ugu dambeyn hadalka qaatay waxa uuna u mahadceliyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee sida diiran ugu soo dhaweysay gegada dayuuradaha Oratambo International Airport isagoona ka mahadceliyay sida diiran ee loogu soo dhaweeyay garoonka dayuuradaha. awalan waxaan rabaa halkan inaan ugu mahadceliyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Koonfur Afrika
soo dhaweyntii diirineed oo ay ugu sameeyeen caasimadda Johannesburg waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad inta ka qayb qaadatay soo dhaweynteedii oo ay ugu horeeyaan ganacsatada qaybaheeda kala gedisan odayaasha dhaqanka gudoomiyaasha culimada ururada bulshada qaybahooda aan kala harin ururka haweenka saxaafadda iyo dhammaan inta ka soo shaqaysay soo dhaweyntan quruxda badan leh inay qaabkan lagu qabsanto walaalayaal mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad u mahadsantihiin mahadi korkiina ha ahaato runtii sharaf ay ii tahay iyo hidadiilo wanaagsan safaradii aan intaas aan ku soo jiray runtii safarka aan ku imid dalka Koonfur Afrika caasimadda Johannesburg iyo jaaliyadii ugu soo dhaweysay runtii bulshooyinka kale waxyaabo badan oo aad kaga bedelantiina jirto hadday noqoto macnaha u diyaar garowga soo dhaweynta iyo mar kasta macnaha inaad tihiin dad u taagan midnimada iyo Soomaalinimada inay mar kastaba ay hagaagto walaalayaal mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay mahadsanidin waxaan rabaa inaan u mahad celiyo si gaar ah gudoomiyaha jaaliyadda walaalkay Cabdiraxmaan Gaarane iyo sidoo kale dhammaan inta ka soo shaqaysay iyo howlwadaanadii ka soo shaqaysay ilaahay ka soo koobnay suurta galiyay inay xafladan ay soo dhaweyntan quruxda badan leh inay halkan ugu qabsanto fadhiyo badan aan isku arki doona insha Allah dadka oo badan oo magacadooda aan kala gaari karin waa ka cudur daarana